كان استاوي روا استاجي حبضوا نوجسوا طوري نهاد مركز سوقاده أنا لوه ما سنة أرك وماش بديك بحاي liibaan oo masaakiin oo shacab oo dhalinyaro oo mustaqbal hor u leh in saas loo galmaahayn shabaabka laga rabo inuu san jis uga dhigo canshuur qaadis oo ah shaqo aan tiisa ahayn ayuu hayay dable xoogga aadan cismaan aadan oo lagu ogaa ururka toddobaad ee kumaandooska gorgor gaar ahaan guutada 18aad colkii ciidamada ee uu ku qornaana waxa uu uga tegay fasax loo siiyey inuu booqdo eheladiisa badalkeedsa waxa uu la qabsaday booliska degmada Afgooye gaar ahaan qaybta canshuuraha eedda uu maanta halkan u joogo ayaana ah dhaawac culus weliba kas ahaa uuna u geystay dhibane liibaan maxamed maxamed 15kii bish sagaalaad ee sanadkii hore 2024 mudane gudoomiye labada dhinac markay iga kala mareen waxa ii soo baxday raggan inay xabad ayaga rideen sidaas darteed oo raggan iga istaag diideen waxa go'aansaday in raggan oo baxsad yihiin oo wax soo dhibaateeyeen sidaas darteed u dhaawacay anoo naftayda ka baqaaya هذا معاه شغلة قبل معته شغلة هي سمكة معته suuqa saa joogay mudane gudoomiye meesha ka shaqeynaa سوقه suuqa qudaarta Afgooye يلا شغلين سمر waxa la shaqeynaa booliis بلوسكي si fiican هذا قرقر ما كتر سنده قرقر gorgora ka tirsanaay fasaxan soo qaatay Afgooyna ku dhashtay ka soo barbaaray waa la yaqaanaa meeshan wax tuugnimo iyo wax dhibaato uma tagin goob shaqaan ugu tagay si ficil sharciyan ku tagay mudane gudoomiye warqadan waa warqadii xaashada dhakhtarka uu ku cadeynayo nooca dhaawac ay gaaray oo dhakhtarka Digfeer cadeynaya isbitaal Digfeer dhaawaca gaaray inuu yahay dhaawac culus oo halis ku ah lugihiisa gudoomiye waxaan rabnaa maalmihii koowaad isbitaalka la geeyay sawirada laga qaaday waatana lugta noocan ayuu xabad ugu dhuftay marka saan aad u fiiriso waa dareemaysaa lugtaas waa lugta liibaanka hadda socda alxamdulillah oo hadda taagsanayo waa saani u tiilay waxa marka dhibkan gaarsiiyay waa eedeysane aadan oo hadda maxkamadda hor taagan waaye isagoo oo wax oo san shaqo ku lahayn ka shaqeynayo 18aad gorgor waxa loo tababaray sidii walaalkay xeelaaliye carab uu sheegay waxa loo tababaray inay la dagaalamaan qawaarid xabadahan waxay aad qawaarid in lagu dhufto sidaan waxa la rabaa in qawaarid loo gal macnaha ma aheen liibaan oo masaakiin oo shacab oo dhalinyaro oo mustaqbal hor u leh in saas loo gal ma aheen shabaabka laga rabo inuu san jis uga dhigo marka liibaan uu ku bedeli halkii uu shabaabku dhaawici lahaa jilibkiisa arag mudug gudoomiye jilibka lafaha aadi u soo baxeen waa jilibkii waay waxa hadda meeshaas hadda aad arkaysaan lafaas banaanka yaal waa jilibkii waay mudug gudoomiye xabadda qaabkay u dhacday waa taasa marka dhaawac sahlan ma ahan waa dhaawac aad u culus waay mudug gudoomiye waxa kaaga sii daran waa tana fiiri waxa soo dhan waa dhaawac liibaan ku dhaca waay ilaahay u dhib yareeyo waa kan dhibanaha kiiskan oo garsoor ku waramay sidee wax u dhaceen yaa dhaawacan gaarsiiyay xaaladdu soo dhaawac ka hor suuqa ay ka soo dhex baxnay ani yar ka walaalkayga waa soo socnay ninkaan anaga hor yimid istaaway waa istaagay fanaanada kor u qaad markaas suuqada lagu amaasay ani xabada ugu dhacday dhiigigii markaa arkeen meesha isaga calaalimo waa ka sidaas ay wax u dhaceen inta ka imaateen markaas suuqa khudaarta ka soo dhex baxnay aye waa ka yarkaan walaalkay suuqa dagaalku galaal yiri abtiga la soo wacay wiilka halkaan uu dagaalku galaal yiri abti markuu mashquulsan aan soo diray ninkaas u tag orod soo wado yiri sidii suuqa ku tagay كان حوا جراف كنت على أركي يا وحنا كوب جست نيكاس وانيك مركو وكوب بودني نيك مركو كوب بودني أسكر حبط نوريد كوري أريدين مركانا جماش وسائل صوتك ما كسعر صعد كسوس عني كان يهريمت نوع حافظ وصوص أنا نيك كان استاوي واستاجي حبضوا نوجس الطوري نهاد مركز سوقاده أنا لوه ما سنة أرك وماش بديك بحاي سيداس يحول عند مدن قدومي مركز ما يغمل يحكي قارين لبضوا لقود أحبذ قدعين لبضوا لقود بقى قدعين نكام أرك جت هذه هرمو أرك محوق بيجي كان ما أنت سيوريس واللي جاي مارك وكا مركز لبضوا لقى كبار ثمية
labadu waa kaban yihiin midaa ku soco kara mar midna kuma soco karo midaa kabanto dhammaystiran tamiya haa sidoo kale garsoorka maxkamadda ciidamada ayaa dhegaystay Cabdi Aadan Ibraahim oo la socday dhibanaha markii uu fal ku dhacay waxa uu dhahay istaag yaa ku dhahay ninkaas istaag uu dhahay markaas bardhadan canshuurteeda gudaha laga rabaa gudaha geey diyaar waan dhaana u socdayna oo bardhada canshuuro waa gudbay bardhadii baabuurkii baaki magashtay bardhadii laga dejinay mid kale oo mooto oo gaari wata maaragt wax yar isaaf gaarna as dagaalna askarti oo canshuurta shaqada ku leeyahay meesha taaga marka ana kala celisay baalootay kor u rideen sidii aniga iyo yarka oo walaalkayga isku soo raacnay luuqa ayaan ka soo baxnay luuqa ninkaana naga hor imaaday kadib istaagoon dhahay waa istaagnay istaagoon dhaayna baalootada ninkaan waa ku taalay anoo dhahay war kada anoo dhahay waxba ku dhuftuuli waa sal dhalatay may irka adiga awreerteeda dhashay wiilka يا محمد أورثت حدش قفك أسيق ما محو قبلنا مركز يستاجنا أما الدجال كفروا كجري محو حاسي دجال كحبتك ما أوجين من كان من الشيبي أنا وشغيناي دجال كان وحمك أوجينين لبقى ولا تزدح قول هذا نودحيس دجال كوميلو حبت اللي قطوري لا تكيس دجالي هي ماشي أو بوقك دعي ما بأوجينين بس لوق مركان كسب بحنا يا ونقول ما استاجن معنا بالوتة وقلفتني كان عندها نقدر أنا وده لو بالوتة وقلفت قدي من عررة مركا هرب مؤركجت أصلا ماشي شقينا هرب مؤركجت سيف أنا كش غير ماشي قدرته أو اللي أنت سوقش السوق يا قدرته أو عنشور وقاعد baaraha galkan ee hoggaanka baarista dambiyada booliska Soomaaliya ayaa fadhigan ku biiriyay natiijada baaristiisa ku-xigeenka xeeralyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe Carab Yuusuf Shabeel ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha la marsiiyo ciqaab adag oo tusaale u noqon karta ciidamada laguna xukumo bixinta magta dhaawaca dhibanaha mudane gudoomiye eedeysanaha waxaan ku soo eedaynay 440 firqadiisa saddexaad dhaawac culus oo kascad oo bareera u geystay oo wax hadda lagu marsiisoon kara aysan jirin ayadoo uu ka been sheegay shaqadiisii waajibaadkii shaqadiisii shaqo aan ahayn oo aaday runtii waxyaalaha lala dagaalamaayo oo la rabo in lala dagaalamo oo la rabo in lagu soo celiyo xajkoodii ayay kow ka tahay in askari waajibkii loo idmaday mid aan ahayn intuu daba mara oo aada mudane gudoomiye ciidanka markii tababar galayaan askari kasta waxaa la faraaho loo sheegaa shuruuca loo sheegaa shaqada waajibka oo qaranka u qabanayo leeyahay ciidanka kumaandooska gorgor waa ciidamada ugu tababarka adag qaranka Soomaaliyeed ay ku jiraan dalka iyo dibadda tababar ay ku soo qaateen wixii loo idmadayna waxay ahayd burburinta cadawga iyo la dagaalanka argagixisada qawaarijta mudane gudoomiye ma ahayn wixii loo tababaray canshuuraha ciidan gaar ah ay leeyihiin oo minishiibiye la yiraahdo iyo ciidan ilaalinta canshuuraha la yiraahdo booliiska hoggaan ka tirsan dadkaas canshuuraha loogu tirigalay ma ahayn waajibkiisa mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sare ana waqtiga ilaalinaya mudane gudoomiye si aysan u dhicin in shakhsi damba uusan ku kahdoomin inuu shaqo aan shaqadiisa ahayn oo aada mudane gudoomiye si aysan u dhicin in aysan mar dambe ugu been sheegin si loogu ay ugu waana qaataan mudane gudoomiye eedeysanaha maxkamadda hor joogo waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaa koow inay ku xukunta magdhowgii dhaawaca liibaan maxamed 440 firqadiisa saddexaad ciqaabta ugu adag oo dhigaya in lagu xukumo si aysan u dhicin mar dambe in nuucaas oo kaleenta qof muwaadin ah dhigiisa loo banaysto maxkamaddu waa maasan tahay wabillahi tawfiiq qareenka eedeysanaha ayaa sheegay in muwakkilkiisu uu caawinayay booliska uuna hayay shaqo qaran isagoo maxkamadda ka codsaday in loo fiiriyo sifaalaha dembiga fududeeya taas hadday caddeeyeen maxaa ku dhex geeyey suuqa iyo hadda loo haysaa cumar maxaa ku dhex geeyey suuqa waa su'aal fudud oo aan ka jawaabi karno had iyo jeer dalku cudur baa ku furan waa sax ciidamada afartooda noocba way gacan siiyaan oo way taakuleeyaan hadduu wiilkii canshuurta ururinayay oo degmada afgooya joogay anigoo fasax ku jiro oo askari ah
hadduu idhooniyo kaa qorigaa sumaysaa soo fasax ku taha inaad yaro garab isii shaqada yartaa dowladnimada ila qabo oo aan ku caawiyo accidentiga ku dhaco marka shaqadaas yarta aan ku caawinayo ina xaraalintu caddaysaa la rabay oo hataa ay baaris ku darsato ay maamulkii iyo askarta xag ka shaqeynaysay ay warqad u diraan dhahaan ninkaasi idinka miyaa la dhahay gacan na sii maadaama ay soo baareen inuu fasax ku joogo oo fasax la soo siiyey taas may soo baareen way ka gaabiyeen xafiiska xaraalinta wuxuu dhahay ereygu adeegsaday maxaad u socotay buu u dhaawacay walaalkiisa uma dhaawan xaasha qof loo dhaawacay maxaa u socotay bab ma jirto walaalkiisu ka shakiyay waa sax cadow buu leeyahay Umar cadowga uu leeyahay hadduusan asagu iska ilaalinin oo uusan ka digtoonaanin ma cafinay madaxu ka tooganaya Umar walaalkiis liibaan maxaad u socotay uma dhaawacin ee baqdin asagu ku jirtay iyo naxdin asagu ku taagneed abuu dhaawacay funaantu kor u qaadi iyo xabadu uu furay baa isku mid noqotay mudane gudoomiye mudane garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa aniga muwakilkaygaba dhibana liibaan oo annagu dhibano noo yahay falka aan u geysanay si baraar umaan geysanin kumaan naga daran cabsi baa noo geysay cabsida noo geysayna dalka oo dhan way ka jirtaa sidaa darteed maxkamadda waxaan ka codsanaynaa marka hore in shaqada qaranka aan u weynay in loo fasaxo marka labaadna walaalka anaga diyaar oo laha inaan daaweysano ilaahay ha noo bogsiiyey inuu ilaahay noo bogsiyo waan rajaynayaa fasaxana nala siiyo maxkamadda waa maasanta labada daraf ee dacwadda iyo eedaysanaha oo fadhigan garsoorku fursad uu ku siiyey ayaa ugu dambeyn waxaa soo xiray gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida cabdiraxmaan gacan warbaahinta qaranka muqdisho